Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Waxaan aad u hambaleynayaa shirkii Absame ama Ogaadeen ee ka dhacay magaalada Jigjiga. Horey baan idiin sheegay Soomaaliya in shirkaa la qabto lasu yimaado. Waxa Somali State uu ka burburay waxaa weeye dhaqankii iyo waxa ka baaba'ay odayaashii hogaamin jiray ee hoggaanka u ahaa. Shirkan aad qabateen waxaan rabaa inaad laba arrin aad ka dhigtaan mid joogto ah oo dal iyo dibad ah oo joogto ah oo labadii bilood u bardhaco ilaa dibaddana laga sameeyo guddi isku xirana la sameeyo. Waa in aad u yeertaan kadibna odayaasha Soomaaliyeed ee qabiilada kala ah ee deegaanka degan ku marti qaadaan, wada hadashaan, midnimo Soomaali halka aad ka soo saartaan oo aad ku wajahdaan doorashada inaad gacanta u gelisaan oo NLF xukunka. Laba arrimood oo kale waa doorasho ma dhacayso, doorasho Soomaali unbaa ku mashquulsan state. Miyaad aragtay Oromo ku mashquulsan, miyaa aragtay Axmaaro ku mashquulsan, miyaa aragtay dal burburay waaye. Laakiin anagu dhibka haystaa wuxuu yahay dameerka, ma aragtay dameerka iyo awrka markii la rarto rarka way qabatima marka rarka guryaha ku wareegeysanaya awrka in la raruu rabaa, haddii kale jirkiibaa jujuuc kaga jiro. Dameerka wuxuu galgalashadu farabadiyaa ilaa laga rarayo. Marka kuwa noocaas ah waa nooca xukunka noo fadhiyo oo rar u sugo bes, oo halka u wada qaawan ee raro waxaa rabta igu sameysaa oo kulma magac loo bixiyo hal xisbi ah. BB-na maanta maray markaana Somali Democratic Party la bixi jiray. Ma aragtay waxaan kusoo gabagabeynaa Money League la dhihi jiray. Waxaan kusoo gabagabeynayaa oo dhahayaa waxaa weeye shacab odayaal ay xukumaan oo dhaqan Soomaali wallaahi wax hor istaagi kara malaha wallaahi. Midlintaas ma aragtay yarta iyo Somalilantaas waxay la burbur leedahay guurti loo noqday leedahay. Somali State waa in aad dhistaan guurti loo noqdo oo ka awood badan ururada siyaasadda oo laga baqo. Waa inaad leedahay macala Ethiopia waad guuleysanaysaan haddii aad taladeeda yeeshaan. Waxa weeye marka Ethiopia burburto horey waxaad dhahaysaan xukunka ka dega, idinka go'aya muxuu ahaa qoladan kondomyada ah oo NLF fuushaan leedahay. Saasa madax banaanidiina ku helaysaa. Haddii doorashadaasi waa la isku dagaalay waa dhici maba dhacayso 100% haddii xataa Somali State ka dhacday inta la wato. War haddii xataa ay ka dhacday inta la watay Somali State xataa waa burburaysa Ethiopia. Ilaahay igaga saray xabaday ka dhici. Doorasho la isku haysto weligii dalka badbaadi bay jirtaa marka beeyay loo soo sheegin. Taasna waxaan leeyahay dadka maanta taageersan daba ordaya haraagan oo reeriyada sugayo ee BB la baxay dadka daba taageersan oo Ilaahay igu ogyahay aan ku dhahay adigana waad ku ciiboobi doontaa meel xun baa istaagsan. Ninkii odayla iyo ninkii siyaasad mustaqbalka loo guurtida raac oo NLF raac. dalka waa dhamaatay wixii kaleeto. Ani wax joogo kama hadlo waxaan soo sheegan waad aragtaan oo markhaati baad iiga tihiin. Waxaan kusoo gabagabeynayaa golaha guurtida u bixiya shirkaas ka dhacay Jigjiga ilaa dibadda ha ka dhaco, xiriir ha la sameeyo, dhaqaale aruus u sameysta. Waa in amarka dalka aad la wareegtaan oo aad sameysaan inaad odayaasha kaleta ee qabiilada ah ee ma aragtay meel kasta ilaahayo oo Somali State deg inaad keentaan. Shirkaasi waa shir ma aragtay miro dhalaya ha noqdo oo golaha guurtida Absame loo bixiyo ka bacdina golaha guurtida Soomaali weyn loo bixiyo marka odayaasha kale aad soo aruurisaan ee isu keentaan. Arrintaasi waxay hogaaminaysaa fiir berigi odayaasha la lahaan jiray xeelad salaas odayaashu la xiriiri jiray magista xalmadood. War annaga hadda odayaasha markii laga bixiyo weli yar kuray oo wada reebiye runaayo oo dalkii la wareegay waan gumowday ma garata. War odayaashii dhaqankeena soo celiya, qadiidiina soo celiya, Soomaalinidiina soo celiya. Shirkaana ilaa dibadda laga sameeyo. Waad la daahdeen goortan dhahay sameeyay ma dhaweyn laakiin waxaa waaye wixii khayr ku jira waa marxalad hadda inta uu fiican yahay si aad oo loo wareegtaan mas'uuliyadda dalka iyo dadka oo ciyaalkan yaryarka ee kondomyada la isticmaalaya aad banaanka u dhigtaan. Odayaasha dhaqanka ee Absame waa in ay sida ugu dhaqsaha badan shirkaasi ay u hirgeliyaan golaha guurtida ay ka dhigaan Soomaali oo dhan odayaasheeda deegaanka degan isu keenaan
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل يوم